saaxiibkay muuse bixi idhaahdo muuse waxaad adigu shalay diiday maanta ha isku dayin inaad ku dhacdo waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay gacantaan idinka haynaa ee joojiya waa khalada waxaan rabaa arrinta la ascaano inaan ku baaqo dowladda Soomaaliyeedna mas'uuliyad baa ka saaran mujtamaca Soomaaliyeed waxa ku dhacaya guriga la burburinayo hooyada barakacaysa iyo dhibaatada oo aan ka hadla dagaalada ka socda la ascaano oo aan isleeyahay ma aha dagaal loo baahnaa dagaal loo baahan yahay ma ahayn in maanta intaasoo dhiiga ay daadatana odayaashii reer Hargeysa ee shalay calanka keenay haddii maanta lagu yidhaahdo xaalad noocaasa burbur noocaasa ka jira xabaasha mayna qabtaana way ka soo bixi lahaayeen waa midaas sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan idhaahdo war wax walba oo xal lagu dhammayn karo in xabad lagu raadiyo xal ma noqonayso dadka reer waqooyigii shalay iyagaa calanka keenay 1960kii way ku ammaanaayeen way ku sharfanaayeen waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dawladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa soo ayaan darro kale ma aha waxaad adigu shalay diidanayd eed sheeganaysay inaad adigu maanta intaad samayso waxaad wada hadal ku xallin kartoo lagu dhammayn karayo in maanta madfac iyo xabad la isugu hayo waxaan rabaa arrinta la ascaano inaan ku baaqo in xabad joojin aan shuruud lahayn la sameeyo ciidamada joogoo dhanna la kala qaado dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan afti baa la weydiin doonaa way codayn doonaan dowladda Soomaaliyeedna mas'uuliyad baa ka saaran mujtamaca Soomaaliyeed waxa ku dhacaya guriga la burburinayo hooyada barakacaysa iyo dhibaatada xalkuna kuma jiro xabad iyo madfac iyo la isku soo duulo hadday taasi socotana cid waliba wax kala dhexdeeda ka sii dhacayo ma istaagayso nabsigu waa wax aad u dhib badan waxaan rabaa inaan saaxiibkay muuse bixi idhaahdo muuse waxaad adigu shalay diiday maanta ha isku dayin inaad ku dhacdo waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay